بسم الله الرحمن الرحيم war-saxaafadeed maanta oo taariikhdu tahay 12 November 2022 ayaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta la dagaalanka argagixisada ayay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxay ku soo qabteen mooto bajaaj gaduud ah mootada aad arkaysaan waa mooto bajaaj taas gaduud ah oo taargadeeduna tahay M903X mootadaas oo ay ku rarnaayeen ugu yaraan 2 nooc oo kamid ah qaraxyo ama miinooyinka wax lagu qarxiyo noocyooyinkaas ayaa kala ahaa MB5 motorcycle alarm system remote oo ah noocan aad u jeedaan oo loo isticmaalo in remote wax lagu qarxiyo oo remote ahaan wax lagu qarxiyo iyo nooca labaad ee ah explosive formed projectile EFB oo iyadana aan noocan u naqaano soo boodada oo iyadana wax ku disha qaab soo booda wadada dhinaceeda argagixisadu inta badan ay ku aasaan ama dhigaan sidaasna ay u isticmaalaan in dadka shacabka ku waxyeelayaan waxba ka galabsanayn dhagartan ayaa argagixisadu la damacsanaayeen shacab Soomaaliyeed in ay ku dhibaateeyaan oo waxba ka galabsan sidii horeba u dhici jirtay hase yeeshee ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ka feejignaa dhagarta argagixisada ayaa gacanta ku soo dhigay iyadoo argagixisadii iyo dhagartoodiiba aysan gaarin goobihii bartilmaameedka u ahaa waxaana gacanta lagu hayaa 2 dhagar qabe mootadii ay argagixisadu u isticmaalaysay inay u adeegsadaan qaraxyada isla markaana ay ku transport gareynayaan ama gaadiid ahaan u isticmaalayaan inay ku daabulaan qaraxyadaas haraadigii walxihii qarxay intaba gacantaanu ku haynaa ilaahay idinkiisna eedeysanayaashaas cadaaladda ayaan horkeeni doonaa wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.